أساس كبلهم بالله بدها يقول هينو كل ما يو دتك الرير بنتلان لما أنت ولد وناكسن ودنينا هينا مدحوينة دلشوقو داعبو وحسمية دني بيسوقين هذا أنا وأوديار قولوا إله حمدان قود بينا يا أديقا قبيل نوغا قولوا إله حمدان قود بينا يا أديقا قبيل نوغا ديقا يقرا شحل أديقا علمي قوة قلنا قلي لابتنا قرسي النبي أنا ذا قول صوتي رأي أديقا قرقار كرتين لبا قورو دي قال دادا أني قول ربو هذا الكوكارين نقولوا إله حمدان قود بينا يا حلقة إنه ورجعنا أبواني حاجة يرتجي دونا فرسمدا markay cod ka bixinayaan balaraag balaraag caasimada bilan balaraag biriishka garaawa mara balaraag siduu barlamaanku yahay balaraag markay cod ka bixinayaan balaraag بلارك باري كركار بلارك مقالة بيليو بريديو بوليمو الكي برقى الكتال بلارك بلارك باري كركار بلارك مقالة بيليو بريديو بوليمو الكي برقى الكتال بلارك تاريخها كديغن اسمه بلان إذا بدل مودي وانا دالا شدادي تاريخها كديغن اسمه بلان إذا بدل مودي وانا دالا شدادي كولوا وقتي نمارين وعلى صوت دقاقية سيدا درتد وحن أسرنا صوت كي دقاقة إلا جوجيو صوت كي دقاقة إلا جوجيو وعلى صوت دقاقية نظام كي أينو كتلق اللي إيا ماموس كي لقبر لها كودا أغوستو أيا ربا هاي إنينو قدرينو وأينو قيميسنو سيدا درتد وحن لك أسرنا دقاقة يتفهمك إيا إن ليس مقروه أيا وحول بك غالسا وحن دوريا وحن أسرنا أنت الرضا إيا إيدا موضو أي مريان وهالكاس أنت كن بحيريان ودبالدقو ذا يوم مناسبات أي صوبر دقيان وحن أسرنا هذا الكرين اللي نغير أيوه هذا الكمان ديرا وحي هذا أننا نلو دايي وحن تدويرها أيوه ملاحظة شرفت له هي قيمها كلا دواني بالشركة أسرنا دقاقة غلجة هل كان عندنا وما وقولين يسوي استاقتو أنا جاي وسيرك وحقينك ورفافين توكلية أي هالك كيستاقية ورياشة إذا أذاها سعافدها ماشي اللي قلت لك أي كوي كاريان سيداس أيان إنه بلنا سيداس أيان قول شغيرنا قوليست لكن والله قوليستا دي القروان وقرينا ما
dhicin idan dhiirano loo dhashiba كولبا هاي نظامكم إنه أبي سيء سيدي أنا كنت لك اللي ويه قابك أنا سويني ما نتجنا يا لقول رقمية ماذا هذا يو كولبا كولبا waxaan halkan ka muuqda sida aad aragtaan war sameecadaha joojiya sameecadda hadlaysa ha joojiso min fadlakum hawshii ayaa bilaabmaysa sameecadda axmed cawil jooji halkan waad garanaysaan waa sawiradii iyo asaasayaashii iyo madaxda hadda inoo joogta ayaa ku sawiran waxa kor kaga qoran midnimo ku hano tayeyn iyo tiigsigu halku dhagi madaxweynaha shacabka u garaaca hala sabciyo intaa markaan ka gudbo halka waxaa ku taallaa horumar puntland waxay u baahan tahay horumar puntland waxay u baahan tahay midnimo halka waxaa ku taalla guusha puntland waa guusha soomaaliya guusha puntland waa guusha soomaaliya halkan waxaa ku taalla soomaaliya ha noolaato intaa markaan ka soo gudubno halkan waxaa ku taalla madaxda hadda uu madaxweynuhu ugu horreeyo madaxweyne ku-xigeenku ku xigo madaxweyne ku-xigeen ku xigo guddoomiyaha baarlamaanka ku xigno hababkii kala duwanaa aan u soo marray muxuu dabaaldega 1 Agoosto sanadihii la soo dhaafay halka waxa ka muuqda hidihii iyo dhaqanka oo ka turjumaya ummadda Soomaaliyeed dhaqankii ay caadada u lahaan jirtay halka waxa ka muuqda maabkii Puntland oo ay gobolada sagaalka ay ku dhayihiin ma sha Allah halka waxa ku yaala
xuska sanad guurada koob iyo labaatanaad ee dowladda puntland ee 1 agoosto 1989 intaas waxay iga ahayd sharaxaad barnaamijka ayaa inoo bilaabaya salaanta baabuurka ayuu halka imanaya taliye sare ayaa salaanta iyo xoogaga hogaaminaya taliyaha ayaa madaxweynaha weydiisanaya inuu ogolaado madaxweynuhu in la soo dhaqaajiyo xoogaga kala duwan ee loogu talagalay dabaaldegga iyo damaashaadka sanad guurada 21aad ee 1 agoosto 2019 marka waxaan jecelahay insha Allah taala dhaqdhaqaaqu inuu yaraado waxaan halkan ka muujinaynaa sida lagu marayo iyo cid waliba boorkaysato waxa uu noqonayaa oo ugu horeeya hogaamiyaha ama taliyaha xoogaga ama damaashaadka ee Puntland inta kadib waxa maraya asaasayaashii Puntland ee madaxdeena hadda joogta ay ugu horeyso boorar ay ku sawiran yihiin iyo naqshad la qurxiyay oo ka turjumaya dabaaldegga 1 agoosto markay boorarkaas soo maraan waxa ku xiga fardooleydii ayaa ku xigta fardooleydii oo iyaguna damaashaadka ka qayb qaadanaysa ayaa ku xigta waxa ku xiga hay waa inoo soo bilowdeen sidaas ayaanu idinku soo gudbinaynaa marka soo dhaqaaq baabuurka mikrofoonku saaran yahay ha soo dhaqaaqo ha gudbo baabuurka waddada ka baxo hay bismillaahi raxmaani raxiim maqalka هلا استاجو سلام شرفت على بحنية هلا استاجو مركي نبيلا ماي فلان راسا سايبا intaasoo bay isugu jiraan mudane madaxweyne iyo ogolow in aan soo dhaqaajiyo waxaan sugaynaa mudane madaxweyne ku xigeen mudane gudoomiye barlamaan gudoomiyaha barlamaanka golaha shacabka ee qaranka gudoomiyaha golaha shacabka ee qaranka gudoomiyaha aqalka sare wasiirada wasiir ku-xigeenada gudoomiyaha koowaad ee barlamaanka golaha barlamaanka gudoomiyaha labaad in dhammaantiin iyo wasiirada iyo ciidamada qalabka sida saraakiishooda kala duwan iyo shacabka Soomaaliyeed isimada nabadoonnada uqaasha waxgaradka ganacsatada xoogaga horsocodka dhammaantiinba waxaan idinku salaameynaa salaanta islaamka waxaan idinku hambalyaynaynaa dabaaldegga maanta aynu 1 agoosto u dabaaldegayno runtii markaan ka faalloodo maanta waxaa la sameeyey dabaaldeg u dhigma deggeladii qaranka Soomaaliya ka dhici jiray indhahana macallimiin noqon doona insha Allah taala waxaana jecelnahay inaad nagu hambalyeysaan sacab iyo gacantana nagu siisaan ururada bulshada ciidamadu markay soo galayaan wax sacab ah
iyo wax hadal ah midna ma jiraan waxaynu daawanaynaa oo kale cutubiyada kala duwan qaabka ay salaanta u bixiyaan iyo sida madaxweynuhu uga qaadanayo intaa ayoo keliya ayaa iyadana inoogu xigtaa waxaan idiin rajaynayaa sanadkan sanadkiisa dhammaanteen haddii ilaahay idmo inaan barwaaqo bash barwaaqo rayn iyo nimco caaniya nabad inaynu ku gaarno baan ilaahay ka baryaynaa madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa caawa iyo maantaba inuu ummaddiisa u duceeyo dalka iyo dadkana u duceeyo haddii ilaahay idmo munaasabadaha soo socda waa mahadsantiin dadku dhaqdhaqaaqa ha naga joojiyeen dhaqdhaqaaqa ha naga joojiyo ciidanku meesha uu taagan yahay bifadlakum yaan laga dhaqaaqin waa codsi waa mahadsantiin minascaanaka waxaan ka codsanaynaa ciidamada amnigu inay dhaqdhaqaaqa joojiyaan xafladdii waa bilaabatay waa la soo marayaa meesha minascaanak saraakiisha iyo ciidankooda dhaqdhaqaaqa ha joojiyeen nin walba meeshuu taagan yahay iyo soka dhaqaaqin heestana naga joojiya inta salaantu socoto waktigii waa ku dhex jiraa waa la soo socdaa insha allahu tacaalaa waxaanu innagana laynooga baahan yahay markay ururada bulshadu marayaan oo isugu jira qaybaha bulshadu ka kooban tahay inaynu soo dhowayno inaynu dhiiri gelinno inaynu u sacabno inaanu mushxaradno haddii mushxarad la waayo maanta anaa mushxaradaya warku intaasuu ku dhan yahay sidaa darteed waxa weeye waxa ugu soo horreeya waa fardihii baa ugu soo horreeya oo dabaaldegga 1 agoosto qaybtay ku leeyihiin ka qaadanaya weligoodna way ka qaadan jireen ma sha allah
بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كنحوا نفتوا وفردي بقورية ما شاء الله سودوية هل كاسي كيف قادر يان تبالدقودا إيجا ينو كسوغينا تبالدقودا أبدا أحمد يا قورية وفرس كفردها وقديرية رقا فردها يغان سيدا يشيغين ما شاء الله سودوادا وحكوئيغا كوحدي على سيداياشي أيا كوئيغا وقامنا يو جنرال دير ويغنا قيبتودا كقيب قادنا يسلانتا ما شاء الله أيانو ليناهي ما شاء الله أيانو ليناهي وحكوئيغا بورر دي قرنكا مداحدي قرنكا ayaa la sidaa si qurux badan loo sidaa si qurux badan loo soo dejiyo kowlawa ahey salaantan eeganayna Hello. ما شاء الله مدحدينا هذا جوكتا مدحوين الديني مدحوين القراش إيه قدوميها برلمان كايا قورية مدحويني هوري عبد الولي مهاري قاس يا عمي يا سعيد حسن ولو يا احمد علي حاشي ويونا حلقه صومري واقول يا عبد الرحمن الشيخ محمود فرول عبد السمد علي الشيري قدومي وري برلمانكا وعكويغا عدم موسى وعكويغا فقرع وعكويغا احمد علي حاشي يا اسمه مدرول وعكويغا محمد عبد عاشي قاقاب هي اسمه بترول وعكويغا عبد الله يوسف احمد محمد عبد عاشي يوسف حاجي سعيد وعكويغا وينك بدلان ايا كويغا وعكويغا دقنكي اورتي او رران او دركيسان تبيلها او ررا او لسيدو او دقنكيني وكيالو kooxdani waa kooxda dhaqanka waxa ku xiga dhaqankii ayaa wali socda waxa ku xiga kooxda walaalaha Puntland oo iyaguna goobta maraya kooxda walaalaha Puntland ayaa iyaguna ku xiga oo iyaguna goobta wadana ku soo bandhigay ma sha Allah waanu leenahay ma sha Allah waxa maraya gobolka bari waxa maraya haweenka gobolka bari ee dawladda Puntland haweenka gobolka bari ee dawladda Puntland waa haweenka gobolka bari ee dawladda Puntland ma sha Allah soo dhawaada waxa ku xiga gobolka Sanaag oo iyaguna boorka quruxda badan sita oo iyaguna boorka quruxda iyo calamadii nashaad iyo farxad iyo wadaniyad iyo karti iyo dadnimo ayaa maanta dabaaldega lagu maraya sawaxankaas wuxuu ka turjumayaa farxadda 1 Agoosto ay leedahay waxa maraya gobolka Sool oo isaguna farxadda ka qayb qaadanaya haweenka Puntland ama dawladda Puntland ee gobolka Sool ma sha Allah soo dhawaada ma sha Allah quruxdaas waad arkaysaan sharafta lagu marayo arkaysaan qadarinta ay 1 Agoosto leedahay ayaa damaashaadkan keenay in sidaa loo maro waxa maraya gobolka Cayn ayaa maraya ma sha Allah hogaamiye ayaa horkacaya hor jooga waa gobolka Cayn
waa gobolka cayn waxay gashan yihiin dharkii quruxda badnaa ee subciyadaha ee ummadda soomaaliyeed dhaqanka u ahaa jiray waxaa maraya calamadii puntland waxaa maraya calankii qaranka waxaa maraya muxuuha tabeelayaal guusha puntland waa guusha soomaaliya waxaa maraya gobolka gardafuul waxaa maraya gobolka gardafuul ayaa maraya dhar qurux badan iyo annaan iyo tabeelayaal halkudhegiyo loogu talagalay calankii puntland iyo calankii jamhuuriyadda ayay ku labisan yihiin oo ay ku caragoonayaan maasha allah waxaa maraya gobolka karkaar ayaa maraya horjoogahooda ayaa horkacaya boor qurux badan hay maanta waxaynala jooga guddoomiyihii dowladda federaalka ee baarlamaanka guddoomiyihii aqalka sare ku-xigeenadiisii ayaa inala jooga waa gobolka karkaar waxaa maraya gobolka mudug maasha allah boor aad wanaagsan calamo qurux badan dhar qurux badan maasha allah soo dhowaada idin leenahay waxaa maraya gobolka nugaal calankii iyo boorkii kii jamhuuriyadda calankii iyo calankii puntland iyo aad u arkaysa dharka quruxda badan iyo maryaha la tuurayo quruxda badan ee cagaarka iyo guduudka isugu jira tabeelayaasha la sito oo ka turjumaya dhammaan halkudhegyadii aanu ku talagalnay munaasabadda 1 agoosto waxaa maraya gobolka haylaan haweenka puntland dowladda puntland ee gobolka haylaan ayaa maraya oo iyaguna ka soo qayb galay inay damaashaadka 1 agoosto ka qayb qaataan waa gobolka haylaan weeye guulaysta waynoo yimaadeen gobolka haylaan baa maraya goboladii oo dhan baa isugu yimid damaashaada kan waa guul waxaa maraya beeralayda tabeelo qurux badan wadata timirtii baa la wadaa dhar qurux badan cagaaran oo ka turjumaya wax soo saarka ayay wataanin maasha allah waxaa maraya ardaydii dugsiyada dhexe ee dowladda puntland hala socdo ardaydii dugsiyada dhexe ee puntland dowladda puntland ayaa maraya si sharaf iyo qurux ku jidho ayaa loo soo habeeyey aad iyo aad bay u habaysan yihiin aad iyo aad bay u qiiroonayaan dhallinyaro yarka waa da'dii soo koraysay waa madaxdii berrito waa madaxdii mustaqbilka insha allahu tacaala guul baanu leenahay ardayda guul ardada ha loo sabciyo ardada waanu jeclaysanay ha loo sabciyo waa madaxdii berrito waa madaxdii mustaqbilka maasha allah waa dalka dadka loo doonayo inay u joogaan waaran sacab baanu doonaynaa waa ka ballannay xagga sacabka waynu horeynu uga ballannay ha la dhaqaaqo hey xoogagu ha dhaqaaqeen damaashaadku maasha allah soo dhaqaaqa maasha allah waa ardaydii dugsiyada dhexe ee dowladda puntland quruxda iyo haybadda iyo calamada ay sitaan iyo sharafta ka muuqata mid la soo koobi karo maanta maaha dabaaldega kan aynu maanta u dabaaldegayno 1 agoosto waa mid qiilo wadaninimo ay ku dhisan tahay waa mid dadnimo ku dhisan tahay waa mid hal abuur fiican loo sameeyey maasha allah baanu leenahay madaxdeenna insha allahu sidaa iyo si ka fiican waxaa maraya iyaguna kooxda gaagaabayaasha ayaa iyaguna maraya maasha allah waa kuwa iyaguna dabaaldega waxay dhaheen waanu ka qayb qaadanayna meel aanu ku harro ma joogno waxaa maraya dugsiga sare ama dugsiyada sare ee dowladda puntland maasha allah waanu leenahay calankii bay wataan calankiina hal gacan ayay ku sidaan calamada waad muuqataan qurux iyo sharaf baa ka muuqata wanaag iyo shacni baa ka muuqda guulaysta ayaanu leenahay insha allahu tacaala waa ardaydii dugsiyada sare nashaadkii iyo wadaniyadii iyo halkudhegii ayay wataan inoo tabalyaal ku wataan calanka puntland iyo calamadii kaleba ay jamhuuriyaddu ka mid yahay waa ardaydii dugsiyada sare waa ardaydii dugsiyada sare
وأرضي دكسة سرة أيها يجونا مريا قول باندين رجينا وقبلي دكسة سرة دولة بلدان ويانا غيبت الدماشات غيبتو ذاك غادنا إياه غيبتو ذاك غادنا إياه غيبتو ذاك غادنا إن شاء الله تعالى قول يا جونيمو قول يا جونيمو قول يا جونيمو لو ما كان هارين ومغني مجران مجتمع بدلان كودا أغوست ما وحندي كرا وان مرخان تكاي كولا وحيمي صاحب كي قاشان ويساقنا هالدورياشا كولا وحمريا وادل يردي dhalinyarada ayaa maraysa arday jaamiciyiinta waa arday jaamiciyiinta ma sha Allah arday jaamiciyiinta ma sha Allah waa arday jaamiciyiinta ma sha Allah hey waa arday jaamiciyiinta dawladda Puntland ويانا قبلوه قيبتو الموجينيان وأي قبلوه قيبتو الموجينيان ما شاء الله يا وي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ورد دليردا وحي وتان صدح يا توانكي اسويل وحي وتان علامه بدلان استانبول اهيد ما شاء الله waxaanu leenahay saddex iyo tobanka halka ku sawiran in ilaahay idin ka dhigo waan rabbi idin barinay waa inaad dadaashaan dalka iyo dadka u dadaashaan yarada dhulwaaga dhulkeena ka soo dhii dhaqaajiyadii gadari yarada dhulwaaga dhulkeena ka soo dhiyay idaago dhise dhali yaradeen dhawaaqa dhulkeena ka soo dhiyay ma sha Allah dhalinyarada waa gabdhii iyaguna waa gabdhii وأورادي دليردا ما شاء الله كوحي سبورتيغا بونتلان باينو كسوخيغا كوحي سبورتيغا بونتلان باينو كسوخيغا كوحي سبورتيغا كلا دوان اي بونت باينو هذا isboortigu qalabkoodii bay ku hubaysan yihiin agabkii isboortiga ay wataan calankii jumhuuriyadda hogaaminaya gabadhaas quruxda badan baa hogaaminaysa kooxihii wakaa koobabkii ay qaateen iyo kubadahoodii bay gacmaha ku sitaan isboortigu ha noolaado isboortigii weeye waka calankii buu salaan ku bixinayaa Puntland ha noolaato shaqaaluhu waa sharaftii dhulka sharaacaysay
shaqaaluhu waa sharaftii dhulka sharaxaysay waa kuwa shiida camuudee kala shaandheeye ka soo saara macdanta wakaa shaqaalihii puntland wakaa wiilal iyo gabdhaba shaqaalihii puntland waa kuwa noolaada shaqaalihii weeye shaqaalihii dowladda puntland wakaa wiilal iyo gabdhaba way isla socdaan wakaa puntland guul shaqaaluhu waa sharaftii dhulka sharaxaysay anku sheege shaqaaluhu waa sharaftii dhulka sharaxay anku sheege shaqaaluhu waa sharaftii dhulka sharaxay anku sheege shaqaaluhu waa kooxda caafimaadka weeye waa kooxda caafimaadka oo shaqaalaha ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha hoos yimaada bay matilayaan waa kuwa la dagaalamaya cudurrada daaweynta ka shaqaynaya qoladani waa kalluumaysatadii badda dheer oo xeebta ah oo ilaahay ku manaystay puntland soomaaliya waa 3,333 inta badan puntland bay ku taallaa badda cas iyo badweynta hindiya khayraadkoodiina waa kuwa ay soo saareen waa shay macaane una malayga qoladan dharka cagaarani badda kala soo kooxda nexon waa shirkadda xooga korontada weeye shirkadda xooga korontada weeye ee dabka dalka siisa ee inoo saamaxday inaynu hadda isla hadli karro qoladani waa dhoweeye waa tagaasida fudud ee durbaha dalbanayso ee meel walba si degdega kuu geynaya kooxda dhoweeye ayaa la yahaa dhoweeye waa tagsiilay baabuurtii wasaaradda kalluumaysiga iyo iskaashitooyinkeeda ayaa kuwii wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda iyo iskaashitooyinka hoos yimaada waa kuwa kalluunkii oo nool gacanta ku haya kalluunkii oo gacanta ku haya waa kuwa kalluunkii qaboojiyaashii weynaa ee kalluunka lagu qaboojinayo weeye waa tallaajadihii weynaa markii laga soo qaado boosaaso ama garaacad ama muxuu ahay ayl kuwaasaa lagu soo qaadaa iyagoo sidoodii u qaboobaa la keenaa magaalo walba oo puntland ka mid ah kalluumaysatada ha noolaato iskaashatooyin kalluumaysa ha noolaato wasaaradda kalluumaysigu ha noolaatiyo khayraadka badda wax hadda inoo soo bilowday dabdamiskii baa ku xiga maanta looma kala harin nooc walba oo gaadiidii waa marayaa weli ciidamadii iyo teknikadii laysma gaarin dhaqaaq kalluumaysi dhaqaaq waa labadaas kalluumaysiga ugu dambeeyaan baabuurtan guduudan oo soo bilaabatay waa dabdamiskii weeye kooxda dabdamiska qaranka weeye kooxda dabdamiska puntland weeye waa kooxda dabdamiska allayna kuma keeno laakiin haddii dabkaco qoladaasaa u birmata oo degdeg u gaadha meelo kala duwan bayna ku habaysan yihiin ayraboorkay joogaan caasimadday joogaan degmooyinka qaarkood bay joogaan waa kooxda dabdamiska khayr wax kaama dhige sharu toogahay weeye sharu toogahay haddii wuxuun dhacaan gaadiidkaasaa degdeg ugu gurmada dabdamisku ha noolaadeen kooxda dabdamisku ha noolaato
dabdamiskii baa inoo soconaya wiilal iyo gabdhaba waa ku jiraan dabdamiska wiilal iyo gabdhaba waa ku jiraan dabdamiska kooxda dabdamisku waa wiilal iyo gabdhaba gender balance weeye gender balance waxa ku xiga wasaaradda beeraha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa ku xigta iyagoo nool oo dadkii marayo kuwani waa gaadiidkoodii wasaaradda beeraha bay'adda iyo isbeddelka cimilada ayaa la yidhaahdaa wasiirkeeduna waa gamaadiid wasiir gamaadiid labadaana ugu dambeeya gaadiidka deegaanka iyo beeraha waxa bilaabatay wasaaradda xanaanada xoolaha weeye tani wasaaradda xanaanada xoolaha waxa ku xiga wakaaladda korontada shirkadda korontada Nexom baa la Nexom shirkadda korontada baabuurkaana ugu horeeya intaan isku xigtaa weeyaga Nexom jaranjarooyinkoodii iyo qalabkoodii waa wataan shirkadda Nexom ha noolaato hadda waxaynu sugaynaa xoogagii bulshada ayaa inoo dhammaaday oo shibilka ahaa waxaynu sugnaaba waa ciidamada qalabka sida ee Puntland ciidamada difaaca Puntland noocyadoodii kala duwanaa iyo teknikadoodii oo ka dambaysa ayaynu sugaynaa insha Allah tacaala Hello. kuwani waa gurmad ما شاء الله xoogag bulshada ayaa inoo dhamaaday xoogagii ururada bulshada ayaa inoo dhamaaday ciidamada waxaan jecelahay halkan in la baneeyo loo baahan yahay in halkan loo baneeyo ayaa loo baahan yahay halkan wadada kow laba ya ciidamadii ayaa soo dhaqaaqaya xoogagii kala duwanaa ugu horeeyo ciidanka asluubta dawladda Puntland waxa ka horeeya baamboyda waxa ku xiga ciidanka asluubta waxa ku xiga ciidanka booliiska waxa ku xiga ciidanka ilaalada xeebaha Puntland waxa ku xiga ciidanka daraawiishta waxa ku xiga teknikadii gaadiidkii wax u kala maqan maanta ma jiraan dabaaldegu waa heer sare aad iyo aad buu qiimaysan yahay shacabka waxaanu leenahay soo dhoweeya wax sanqari ma jirto wax sacabi ma jiro wax hadalahi ma jiro wax dhaqdhaqaaqi ma jiro waddada iyaga keliya ayaa maraya intaas ayaan idinku wargelinayaa intaa in lagu dhaqmo ayaa loo baahan yahay dadka dhaqdhaqaaqaya joojiya dadka dhaqdhaqaaqaya halkaa ha loo baneeyo ciidamada insha allahu tacaala khayr iyo guul baan idiin rajaynayaa ilaahay iidankii rabbi khayr baynu ka baranay raxmad marka waxaan u baahannahay wax dhaqdhaqaaqa meesha ciidamadu ay ka baxayaan waxaan codsanaynaa sidii horeba waddadii la maray ayaa la marayaa waddada laftigeedana waxaan codsanayaa oo kow codsanayaa laba codsanayaa saddex codsanayaa
in loo banneeyo si ay ciidamadu u helaan meel ay maraan iyaga iyo qalabkoodaba insha allahu tacaala waddadu waxay u furan tahay baabuurta gargaarka ambalaasyada oo keliya ayay u furan tahay وفردي صوناريغا هاي سيد محمد عبد الله حسن ودلك كنت دفاعي وهاي كور تغيان هذا عتوبيدا إذا ما قلب كسيغا بنتلان وهذا مناسبة كوي لو تنقول أساس كي بنتلان سومري دونا
بحر في سيادة تحت بيك كما فورو عسكري بربانا هاي مسيقو من عيادة كما بحر في سيادة تحت بيك كما فورو لو كان قادر باحا لو كان قادر باحا موكري فكي ما دينا عمري صومالي كما تاقي علنك علنك ما تنسال العلنك نقر قبا موكري فكي ما دينا عمري صومالي كما تاقي كولوا
وريا كله هذا ماشي عسكري كاميرا Vai,
waxaa hadda maraya gaadiidkii kala duwanaa ee ciidamada oo ay ugu horreeyaan ciidanka booliiska taraafikada gargaarka degdega ah taraafikada ayaa maraysa ciidanka booliiska taraafikada ayaa maraysa ciidamadii xoogagga kala duwanaa ee afarta ciidan ayaa horay u maray haddana waxaa maraya gaadiidkoodii waxaa ugu horreeya ciidanka booliiska puntland ciidanka booliiska dowladda puntland ayaa ugu horreeya gaadiidka ayaa haddana maraya oo ciidanka booliiska ah qaybaha kala duwan ee gaadiidka noocyada kala duwan ee gaadiidka waa ciidanka booliiska puntland ciidanka booliiska puntland weeye oo iyaguna ka qayb qaadanaya dabaaldegga waxaan leenahay maanta xuska 1 agoosto looma kala harin hadday gaadiid ahaan lahayd hadday ciidamo ahaan lahayd hadday ururada bulshada ahaan lahaayeen hadday ardada ahaan lahaayeen cid u kala hadhay maanta ma jirto waa guul aan taageerayno waa guul aan taageerayno maasha allah maasha allah maasha allah waa guul puntland ay gaadhay waa guul soomaaliyeed waa guul puntland ay gaadhay waa guul soomaaliyeed maasha allah waan leenahay maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah weli waxa socda waa ciidankii gaadiidkii booliiska dowladda puntland ayaa weli socda mar dhowa maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah maanta waxay ahayd maalin qiimo ku leh ummadda puntland iyo ummadda soomaaliyeedda meel kasta ay joogaan waxaa sharaf iyo maamuus noo ah sida xilkasnimada waddaniyadda kartida dadaalka hufnaanta dadnimada shucuurta iyo wixii kale oo la midaba ee lagu soo maray ama lagu soo dhoweeyey 1 agoosto xuskeedu waa nagu weyn yahay dowladda puntland iyo ummadda soomaaliyeedba iyo shacabka reer puntlandba xuskuwan 1 agoosto waa ku weyn yahay waa maalin qadarin iyo qiimayn iyo waddaniyad ka mudan shacabka puntland iyo shacabka soomaaliyeedba guusha puntland waa guul soomaaliyeed guusha puntland waa guul soomaaliyeed guusha puntland waa guul soomaaliyeed midnimo ku hano tayayn iyo tiigsi waa halkudhaggii madaxweyneheenna puntland siciid cabdulaahi deni waxa weeye midnimo ku hano tayaynta iyo tiigsiga tayayn iyo tiigsi weeye waa halkudhaggii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay ee lagu howlgalayo oo lagu shaqayn doono haddii ilaaha idmo muddooyinka hadda soo socda haddii ilaaha idmo waa guul aan taageeraynaa weeye waa ciidankii booliiska waa basaskii waa baabuurtii booliiska qaybahoodii kala duwaneyd noocyadoodii kala duwanaa ayaa iyaguna maraya maasha allah ayaanu leenahay gaadiidkii ciidamada daraawiishta iyo mariiniska iyaguna weli waa dhiman yihiin dabaaldegu maanta aad buu u dheer yahay kuraasta hal adkaysto caawa ayaa ka daran xafladda barnaamijka guddiga qabanqaabada ay ku tala galeen waa wax runtii aad u ballaar waxaa sharaf weyn noo ah oo aan ku maamuusaynaa oo aan ku qadarinaynaa maalinta 1 agoosto oo maanta aynu dabaaldegayno waa maalintii la asaasay puntland waa maalintii ugu horraysay ee dowlad puntland lagu dhawaaqo oo la dhiso oo madaxweyne la doorto sharaf weyn bay noo tahay marka
inaynu maanta isugu soo baxno oo aynu daawanno barnaamijka uu ku talagalay guddiga waxaan leeyahay waajibkiinna waa gudateen ilaahay ha idin garab galo rayr baan idin rajaynaynaa haddii ilaahay idmo wax fiican oo wanaagsan ayaa maanta halkan maraya waxaan horey loo arki jirin weeye runtii maalin sanadba sanad ka dambeeya xuska 1 agoosto waa ka sii xoog gudnaanaya maanta intaynu aragnay in ka sii badan iyo waxyaabo kala duwan iyo waxyaabo maartay dadka soo jiita ayaa insha Allah ta'ala haddii ilaahay na gaarsiiyo aanu soo gudbin doonaa marka waxaan dhammaanteen baanu leenahay ma insha Allah waa ciidankii asluubta ayaa gaadiidkoodu maraya ciidanka asluubta ayaa gaadiidkoodu maraya waa ku xiga ciidanka mariiniska ama ciidanka ilaalinta xeebaha Puntland ciidanka ilaalinta xeebaha dawladda Puntland ayaa ku xiga warka salaam bixiyay ayaa salaanta bixinaya gaadiidkii kalena waa ka dambeeyaan iyagana sidaas ayay wadada u marayaan dabaaldega ayay ugu talagalay inay iyaguna ka qayb qaataan kaalintoodana ay muujiyaan waxaanu leenahay ciidamadu kaalin firfircoon iyo dadaal iyo niyad sami iyo wax wanaagsan iyo waxaad runtii ummadda reer Puntland iyo shacabka Soomaaliyeed soo jiitay ee baraha naga daawanaya ee live-ka nagu daawanaya ayaa halkan muxuu baraya aad baanu raalli idinka nahay ilaahay ha idin gargaaro ilaahay ha idin gargaaro waxa weeye ciidamadii baa maraya ciidanka ilaalinta xeebaha Puntland weeye ka naxow nafta waa diidow dilaac waa gaadiidkii ciidanka badda ambalaaskii gargaarka degdega ah ka dambeeya oo iyagu ay leeyihiin waa ciidanka xeebaha ilaalinta xeebaha ambalaaskoodii weeye baabuurka weyn iyagaa leh والقردروي تعال gawaarida gaashaamana ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa soo maraya ciidankana waa ciidankii ugu horeeyay ee qaranjabkii Soomaaliya kadib Soomaaliya laga dhisay waa ciidankii qarannimada Soomaaliyeed dib u curashadeedii dib u yagleelay waa ciidankii maanta filla Soomaaliya calanka buluuga ee ka dulbabanaya ciidankii ka dul taagay waa ciidankii dawladda Puntland ugu horeeyay dawladda ku meel gaarka ee Cabdullaahi Yuusuf markii ay caasimadii dalka ee Soomaaliya rajadii Soomaaliya dib u soo celisay ciidamadii dawladnimada Soomaaliya soo celiyay ayay ahaayeen ciidanka daraawiishta Puntland sida arkaysaan waxa dheega kaga buufsan astaankii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka qaranka Soomaaliyeed uu leeyahay difaacaya qarannimada Soomaaliyeed dawladnimada Soomaaliyeed xuduudda Soomaaliyeed dhulka Soomaaliyeed sharafta iyo karaamada Soomaaliyeed garabkiina aan soconaaye geeshkayawow guulaysta 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 edinodeebow guulaysta 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 guulagudayow guulaysta garabkiina aan taagane guulaysta guulaysta garabkiina aan soconaaye geeshkayagow guulaysta
guulaysta guulaysta guul lagu reebo guulaysta 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 guul lagu reebo weli waxaa soconaya ciidamadii gaadiidkii daraawiishta ayaa soconaya weli oo xoogga dalka u taagan ayaa weli soconaya weli waa gaadiidkii xoogga dalka ama daraawiishta dadweynaha Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisa oo ay shaashadaha telefishinka ka daawanayaan aad bay ugu farxayaan markii dalkoodu uu leeyahay ciidan adag oo xuduudihiisa suga deeshku ha guulaysto ciidamada difaaca Puntland ha guulaysteen ciidamada difaaca Puntland ha guulaysteen guusha Puntland waa guul Soomaaliyeed maanta waa maalin weyne maanta waa maalin weyne maanta madaxeen banaane maanta madaxeen maanta waa maalin weyne maanta madaxeen banaane maanta waa maalin weyne maanta madaxeen banaane Soomaaliya ha noolaato Puntland ha noolaato madaxda qaranka Soomaaliya ha noolaadeen madaxda dawladda Puntland ha noolaadeen shacabka Soomaaliyeed ha noolaado guul iyo gobonnimo waa nooc kale oo ciidamada xoogga dalka ka tirsan ciidamada difaaca Puntland qayb kale oo ka tirsan noocyadiisa kala duwan maanta waa weli gaadiidkii baa socda weli gaadiidkii ciidamada difaaca Puntland baa socda weli waxa socda gaadiidkii ciidamada difaaca Puntland ayaa socda gaar ahaan daraawiishta kooxdii bamboyga oo madaalayaala ayaa muusikada u garaacaysa oo maaweelinaysa dadka iyo ciidamada maraya gaadiidka marayaba نوعية كلا دوان سيرهم بسوحي كرانة ونوعية كلا دوان gaadiidkii cuslaa baa bilowday gaadiidkii waaweynaa baa bilowday salaam bay bixinayaan horjoogayaasha wataa
sacabka u tuma sacabka u tuma sacabka u tuma guulaysta 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 waa nooc kaloo gaadiid ka mida gaadiidka dad qoryihii laba dhuumoodlaha weeye waa qoryaha laba dhuumoodka oo riddada dheer weeye waka weli waxa socdaa waa gaadiidkii ciidamada difaaca Puntland weli iyagii baa socda waa kuwa salaamantii gaashaandhig waa guulaysto gaashaandhig guulaysto ciidamada difaaca Puntland ha noolaadeen guusha Puntland waa guul Soomaaliyeed noocyo kala duwan oo kalena waa kuwa waka 21 dhuumood baa soconaya waka halkaa ayay inoo ku dhammaatay halkaa ayay inoo ku dhammaadeen بسم الله الحمد لله شعب وينها رير بنتلان مالك السوء أي توغان gaar ahaan shacab weynaha caasimada Puntland ee Garowe ee ka soo qayb galay dabaaldega xuska 12 guurada asaaskii dawladda Puntland dhammaantiin way idin mahad celinaynaa sida sharafta leh wanaag leh deerada leh ee aad u garab istaagtay iyo ciidamadii meesha marayay sidaad uga shaqayseen nabadgelyo inay u dhacdo u difaacdaan dadkiina iyo dalkiina aad baan idinku mahad celinaynaa waxaanu sidoo kale u mahad celinaynaa ciidamadii iyo colalkii kala duwanaa iyo cid walba ka koobnaa ee meesha maray iyo ciidankii qalabka siday aad baanu ugu mahad celinaynaa madaxda qaranka sidoo kale salaamen u mahad celinaynaa madaxweynaha dowladda Puntland madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee Soomaaliya dhammaan xubnaha baarlamaanka aqalka Soomaaliya Hello. iyo golaha xukuumadda ee dawladda Puntland iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadda tan iyo inta live-ka ula socota wadin salaameena
madaxda dawladda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo mas-uuliyiinta iyaga oo u turaya dadkooda iyo shacabkooda waxa ay codsadeen in kelmad kooban uu madaxweynaha dawladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni uu ka yidhaahdo munaasabadda waxay inoo noqon doontaa barnaamijkeenna cawayska iyo wakhti dheer aynu ku wada qaadan doono dabaaldegka xarunta madaxtooyada waxaan rabaa inaan siiyo kelmaddii madaxweynaha dawladda puntland uu kula hadli lahaa shacabkiisa iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha aad ba u mahadsantihiin ku soo dhowow mudan madaxweyne waa salaamaynaa dhammaan dadka ka qaybgalayaasha ah madaxweynuhu khudbaddiisa wuxuu u dibdhigtay caawa dadku uga suray maanta maadaama qorrax badan la taagnaa runtii iyadoon ku hadlayo guddiga qabanqaabada xafladda tan codkooda waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay taabagelinta xafladda tan oo ay ugu horreeyaan ciidamada qalabka sidee puntland oo inoo suurtageliyey si amniya inay xafladda tan inoogu dhacdo waxaan kaloo u mahad celinaynaa dhammaan xogaggii kala duwanaa ee ka qayb qaatay ee wakhtiga badan geliyey ee madaxda ciidamadu u horreeyaan ee guddiga qabanqaabadu u horreeyo oo ururada bulshada kala duwan ay u horreeyaan runtii waxaan ku wareejin doonaa adeer maxamed faarax ciise gaashaan oo sharxi doona xoogaggii halkan ka qayb galay waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba uga mahad celinayaa dhammaan ummadda reer puntland niyadda wanaagsan iyo ka qaybgalka xoogga leh ee ay kaga qayb galeen maanta munaasabadda tan maanta waa 21 guuradii puntland waa maalin ku weyn ummadda soomaaliyeed waa maalin ku weyn shacabka puntland waa wiil 21 jirsaday waad arkaysaan xoogagga maanta soo maray awooddooda waa cudud ay soomaali ku faani karto waa cudud ay puntland ku faanayso waa cududdii qaranka soomaaliyeed fiilla soomaali ku celiyey ee uu garwadanka ka ahaa alla shaniya raxmaha ka waraabiye madaxweynihii dowladda federaalka soomaaliyeed ahaana madaxweyne ugu horreeyey puntland mudane cabdulaahi yuusuf axmed puntland waa hooyada ummadda soomaaliyeed waa hooyada federaalka soomaaliyeed maanta awoodda ay muujisayna waa awood farxad gelinaysa qof kastoo soomaali wanaag la jecel runtii farxad bay qalbiyadayada ay ku xaranaysaa maanta waa maalin weyn maanta waa maalin weyn waxaan ku wareejin doonaa halyeeyada waaweyn waxaan horta ku wareejin doonaa professor maxamed cali faarax wasiir ku-xigeenka cadaaladda si uu kelmaddiisa u yidhahdo kabacdina waxaan ku wareejin doonaa halyeeyada madaalayaasha ah ee maxamed faarax ciise gaashaan iyo tigay iyo adeer cabdulqaadir wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyntii munaasabadan 22ka kowda agoosto 22 jirsatay waxaan u hambalyeeynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Puntland si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan xoogagii kala duwanaa ee maanta soo maray dabaaldegan oo muujiyay dadnimo iyo qiimo weyn aad iyo aad bay u mahadsanyihiin xoogag kala duwan oo isugu jira hogaamiyaasha damaashaadka kala duwan sida kooxaha calamada xoogga dalka kooxaha fardoolayda ubaxa puntland kooxda hidaha iyo dhaqanka kooxda lagu magacaabo walaalaha oo runtii magacoodii rasmiga ahaa barakacayaasha aan la jeclaysannay inuu noqdo magaca walaalaha gobollada kala duwan ee puntland ee sagaalka ah dhammaantood ururka beeralayda ardayda dugsiyada hoose dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare iyo jaamacadaha ururka dhallinyarada kooxda isboortiga shaqaalaha dawladda puntland iyo ciidamada qalabka sida iyo kalluumaysatada nexo iyo dabdamiska iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida tiknikadoodii iyo ciidankoodii hubkoodii oo dhammaantood ku wada maray dhammaan waanu halbalyeenaynaa waxaanan u rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu guusha haleeshiyo meel kasta ay joogaan bulshada reer puntlandna waxaan leenahay meel kastoo ay joogaanba hambalyo nabad iyo caana ku waara insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa tahay daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa baahinteennii oo markaasi aanu idinku soo gudbinaynay ama aanu idinku soo tabinaynay munaasabadda xuska 22 guurada ka soo wareegtay asaaskii puntland oo maanta ka dhacaysay halkan oo ah barxadda bartamaha magaalada Garowe ee caasimadda Puntland sida daawateenna waxa la maray xafladda iyadoo ay ka qayb galeen guud ahaan dhinacyadii loo diyaariyay inay halkan maraan oo ay ku sameeyaan bandhig ballaaran oo markaasi ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha dawladda Puntland madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Puntland
ku-xigeenadiisa wasiiro iyo guud ahaan madaxda hay'adaha dawladda kuwaasi oo halkan ama stagekan iga dambeeya ka daawanayay xafladdii halkan ka dhacaysay ee markaas lagu weyneynaya xuska sanad guurada 21aad ee ka soo wareegtay asaaska Puntland baahintani intaas ayaanu goor dhow ku soo gabagabayn doonaa waxay la jooga tigay oo kamid ahaa guddiga qabanqaabada sidoo kalena aad daawanaysaan tabintiisa xafladda iyo kaalintiisii soo dhawow gudoomiye maxaad ku soo afmeeraysaan waxaan ku soo afmeerayaa marka ugu horreysa waxaan mahad celinayaa warbaahinta Puntland TV kadibna waxaan leenahay hambal shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leenahay hambal iyo 22 guurada Puntland waa 22 guuro Soomaaliyeed ciidamada qalabka sida ee maanta barayay ee shaabadoodu ahayd ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidankii qarannimada Soomaaliyeed dib u soo celiyay ee filla Soomaaliya calanka Soomaaliya mar labaad ka taagay maanta waxay ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay sidii ay siyaasadda Puntland ku dhisnayd in ay ummadda Soomaaliyeed la isu soo celiyo ummadda Soomaaliyeed dawladnimadeeda la raadiyo farxadda inay nala wadaagaan ayaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed qof walba meel walba aad joogtid waxa aanu hayna adaa iska leh dhulka aanu hayna adaa iska leh xuduudda ciidana aynu hayna adaa iska leh maamulka aanu hayna adaa iska leh Soomaalidu waxay kala leedahay malaha wax badan baa la oran jiray Soomaaliya toosoo isku tiirsaday hadda anagu waxay Puntland leedahay Soomaaliya aan toosno oo aan isku tiirsanaano oo cadawga iyo shisheeyahana meel aynu uga soo jeensano ummad midaysan aynu noqono astaan bay taas maanta u ahayd dabaaldega 22 guurada Puntland 22 sano oo dad Soomaaliyeed ay maamulkii ugu horeeyay Soomaaliya ay lahaayeen ciidankii ugu horeeyay oo Soomaaliya laga yagleelayna uu ahaa ciidanka daraawiishta Puntland ee hadda ay marayeen fardoolaydeedii daraawiishtoodii kumaandooskoodii iyo cutubiyadooda kala duwanaa iyagoo u heelan inay difaacaan dalkooda qarannimadooda sharafta iyo ummadda kalaamada Soomaaliyeed waxaan leenahay hamal iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba watahay abwaan Cabdul ayaa kamid ah dadka abwaan Suufi dadka halkan ila taagan Suufi oo Ali soo dhawow nala wadaag dareenkaaga aad iyo aad baa dareenkaygu maanta u faraxsan yahay Puntland maalintii